khamiis kasta oo bil u dambaysa ayay maamulka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku waxay u asteeyeen maalinta nadaafadda oo lagu nadiifinayo gudaha dibadda iyo agagaarka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland. Ololaha nadaafadeed oo ay maanta u dareereen dhammaan shaqaalaha wasaaraddu oo ay ku jiraan agaasimo waaxeedyadu waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland. agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha mudane Maxamed Ibraahim Buuni ayaa ugu horreyn ka hadlay maalintan loo asteeyay nadaafadda waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waa khamiis maalinta ay u asteeyeen maamulka iyo shaqaalaweynaha wasaaradda qorsheynta maalinka nadaafadda inay 2 saacadood la siiyo wasaaradda dhammaan shaqaalaweynaha iyo maamulka sare wasaaraddu waxay maanta si wada jira uga shaqeeyeen nadaafadda iyo daryeelka wasaaradda marka dhammaan waxaan bogaadinayaa shaqaalaweynaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka rag iyo dumarba kaalinta weyn ay ka qaateen maanta arrintan isbeddelka runtii waan ku bogaadinayaa waxaan sidoo kale bogaadinayaa agaasimaha guud iyo agaasimaha maamulka iyo lacagta oo hawshan ilaa xalay ilaa shalay toole waqti dheer geliyay. intaasi kadibna agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Mustafa Cumar Faarax ayaa ka warbixiyay ujeedka ay ka leeyihiin maalintan ololaha nadaafadeed. runtii aad bay u muuqatay isbeddelku maanta in goobta nadaafadda iyo goobtaada guriga gasho isku si loola dhaqmo isku si ku yihiin nadaafaddu waxay tahay waa nisba min iimaan baa leeyahay diinteenaba qiimaheeda sheegtay inaguna inaynu goobta ka shaqeeyno caafimaadkeena iyo bilicdeeda iyo wixii ay ilaalinaa waa muhiim waxaan aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha wasaaradda oo suntii hogaaminayay shaqaalaha qaybaha kala duwan saaka halkan looga bilaabay welina waa socotaa sidaa u muuqataan in xashiishkii laga gurayo la maydhayo la hagaajinayo runtii isbeddelkuna markay hadhow muuqan doono waxaan aad u hambaleynayaa dhammaan shaqaalaha weynaha wasaaradda gaar ahaan hablaha wasaaradda oo runtii arrinkan aad iyo aad ila saaka hogaaminayay waxaa kaloo mahadnaqayaa agaasimaha waaxda shaqaalaha agaasimaha maamulka iyo maaliyadda oo runtii iyagu arrinkan ilaa shalay ka shaqeynayay runtii isbeddel weyn baa muuqda maanta waxaan jecel lahay inay joogto noqoto bil kasta waxaan jecel lahay in goobta la shaqo noqoto goob nadaafad leh oo dadka soo jiidan karta oo lagu shaqeyn karo oo caafimaadka qofka ka qayb qaadanaysa waxay ka qayb qaadanaysaa arrimaha deegaanka hagaajinta deegaanka aad iyo aad baan u mahadnaqayaa wasaaradda iyo shaqaalaheedaba isku duuban assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu